وانا سلامي دمانتين مرتدى الشرف عليها هل كنت شوفت دمانتين وادي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u malaynayaa kal su'aashaas hadaan isku dayo midaamaan isleeyahay in badan baa dalkan deganeed waxay noo leedahay faa'iido aad iyo aad u fara badan in aan ka qayb galno doorashada waayo waxaan noqonaynaa hadaan doorashada ka qayb galno qaran jira oo muuqda oo qof kasta oo hadiya jeeraale inaga sheega negative aynu tusi karno inaynu nahay dad positive ah midaama dhalinyaradeenii soo baxday oo maasha Allah tabarakallah maanta aamina ba xildhibaan tahay halka soo taagan tahay taariikhdeedana aan garanayo maasha Allah kuwa ka dambeeyana ay noqon doonaan waxaan idinku dhiirinayaa Soomaalida ku nool beerganiyada waaxideeda inay ka qayb galaan doorashada 100% oo aan yaraysan si aynu u muuqano inaka oo isku duuban oo ah ummad Soomaaliyeed oo hadaf kaliya leh oo u danaynaysa awlaadooda diintooda iyo dhaqanka ay ku haystaan halkan horta siyaasadda wax xisbiyeeda ay leeyihiin nin walba xisbiga asaga oo doono ayuu dooran karaa anagana waxaan xurunahay oo nin walba oo muwaadin oo haysta baasaboorka Norwegiga inuu codkiisa dhiibto hadduu codkiisa dhiibo gurigiisa ku haysaa waxa uu matarayso laakiin waa inaan ku soo sharaxaa nin walaalkiisa ama nin asxaabtiisa si aan anagana nala ogaado inaan nahay dad oo wadaniyiin oo dooran karo qofka ay ayaga doonaan waana ku faraxsanahay dadka oo soo galay inay doorto inaan doorano codkeena waa dhiibanay anana codkayga waa dhiibtay waxaan ugu mahadcelinayaa in Ilaahay maartay oo ka dhigo dadkii oo suurtagalka noo ahaa oo hormuudka dadka Soomaaliyeed oo Bergen degan ama Norway dhan inay ka dhex muuqdaan insha Allah waxaan mahadcelinayaa jaalida Soomaaliyeed kulankan saan u qiimaha badan soo qaban qaabisay waqtigii loo baahan yahay inay ku soo aadisay waxa kale oo mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha aragtiyadooda kala dhiibanayo oo diyaarka u ah inay bulshadeena ka qayb qaataan iyo labada xildhibaan oo nagu matalo golaha deegaanka sida noo soo matalayna waa ugu mahadcelinayaa iyo sida haddaba diyaar u yihiin mid kale hadda u soo laabto tan saddexaad oo ah su'aasha jaalida noo soo dhigto meesha inaa dareenkeena ku maxaa muhiimad intee la eg ayay ku leedahay in aad ka qayb gasho doorashada golaha deegaanka iyo kan gobolka macnaha su'aashaas hadaa fiiriso waxa waa jaaniska koowaad qofka horta waxay tahay deegaanka iyo gobolka labaduba waa laba kanaal oo aan ku muujin karno dareenka aan qabno si ay ku gaarto golaha ugu sareeyay xukuumadda iyo golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda si ay ku gaarto waxa aan qabno isla markaas xildhibaanadan waxa waaye kala dooranayna iyo xisbiyada qolooyinka ka jawaabay dareenka nagu jiray qofka ka jawaabayo ama kooxda ka jawaabayso meeshii aan ugu codeyn lahayn waay marka muhiimad waxay noo leedahay rabitaanka baahida nagu jirto waa meel ay ku gaarto dadka taliyada ugu sareyso ma haddii lagu tilmaamo sida saambuuska kale saddex geesood golaha sarada talada ugu sareyso waxa waaye isbiis al dhaha meesha ugu sareyso oo saddex geesoodka ugu sareysay joogaan marka doorashooyinkana maadaama beesiga mid hoose oo dadkii ka jawaabay ay yihiin oo bulshada guud ay ka qayb qaadanayso waa dareenkii hoose oo bulshada ku jirta hadda ani baahi ahaan hadda gees ka sheego mararka qaar marna duruufeena way kala duwan tahay qaarna waxay noogu yimaadeen qaab arrimo bulshadeed qaarna waxay noogu yimaadeen kuwa shaqooyinkeena la xiriiro hadda sida gaar ahaaneed xisbiga shaqaalaha kale marka la dhahayo kale dareemada qaar markay ka hadlayaan waxa u badan hadirtaan waayahan dambe shaqooyin waxa jirto Norwegiga ee gadaal uga wareegeen oo ajnabiga ee front u yimideen sida gaadiidka kale shaqooyinkaas xoogooda ay ka soo wareegeen isla markaas baahiyada aan qabno oo hadda ugu dhibanahay waxa waaye oo shaqadaas la xiriirto meelaha buugteena ee ka damqanayso qadadka amarsi karno waxa waaye kanaalada doorashada dadka arrimahaas ka hadlayo sida tusaale ahaan oo kale hadartan saagaga yaalo suuqa waxa ku jirto in gaadiidka la wada isticmaalo electric oo la joojiyo baansiinka haddana daruufo la xiriiro dadka qaar way haystaan oo gaadiidka qaaligiisa markaa soo gado muddo ayuu garantigiisa joogsanaa
haddana waqtigii shaqada oo kaa kala xayiba shaqadiina diyaar uma wada ahoo ma dhammaystirno shaqo toosa oo qoftigii shifti ku talageli kara maaha marka baahiyooyinkaasoo kale dadka annaka nabatalayo komunaalada ama gobolka dareen noocaas inay qaadaan shaqooyinka qaar way ka wareegsadeen dadka hay jire maadaama annaka ajnabi ku wareejinay sida golaha ugu sarreyso dadka jooga annakana ajnabigii dadaa noo galay oo baarlamaanka galay oo galay ee golihii deegaanka dadkaas waa inay baahiyada iyo shaqooyinka qaar iyo bulshada meelaha ay uga aadannahay baahiyada la halmaasho inay qaadaan oo furunta geeyaan waay marka muhiimaddaas ayayna doorashada noo leedahay ka qayb qaadashadeena ajnabi ahaanna bulshada waxaa la yidhi hiirtaya ama ka tiilaaba adee rarada kuu taalla bulshadan adaa ka soo mid noqotay haddii la yidhaahdo baarkeerino daruufteeda geesa naga haysataa haddii la yidhaha gaadiid geesa naga haysataa haddii la yidhaha shaqooyin la qabanayo geesa naga haysataa marka inaan ka qayb qaadano waa muhiimad ugu weyn qof kastana waa inuu codkiisa dhiibaa qofka annaka nagamida oo furunta imaanayana waa mahadsantahay inaan dhahno dadka labalabeenayo ayagoo howshaas noo qaban karana waa inaysan baqan micnaha leysma huri doono ama jiif ama maxay ahayd ama ka carar mas-uuliyadda wayna wada sugay marka hooyadu waa ina codaysaa waa ina caruurta soo gaaraan waa ina qof allaale qofkii fursad u helayo hadda dalkeena waxaa loo dhiban yahay dadkii ma codeynayan fursadda annaka heesanno ma heestaan soo waa inaad tixgelinaa fursadda aan heesanno maanta waana inaa isticmaalnaa waana nimceena ka mid tahay haddaana warkaada la dhegaysanayn oo waxba laga soo qaadanayn xanuun waay marka intana la dhegaysanaya intii muhiim ee tahay waxyaabaha aad iyo cajibiya waxaa ku jirta waana jeclaa lahaa inay soomaalida dareemadeenna waxyaabaha aan la aamusannahay oo aanan muujinoo maya iyo haada aad dhehaynin dhib badan ayay noo keenaysaa hadday noqoto dareen diimeed oo nalagu duqaynayo waa inaan dhahno dareenkaasaa ka qabnaa hadda barnaamijyada diiniga ee timaado waa inaan dareenkaasaa ka qabnaa shaqada dareenkaasaa ka qabnaa lacalla wacasa inna lagu tixgeliyo oo arrinkaas daraaddeedna loo daayo kutubaa lagubaa raalli kama nihin dareenkeenna waay maxaa yeele hadda aniga xifdisanahay maanta uu igubi lahaa qofka sadoojaan isku haysto dareenkayga haddii la yidhaha sidee u haysartaa dowladda hadday noqoto ama bolis ama xisbi noqoto rni aniga waa idhibe arrinkaas waa tixgeli karaa waa ka gaabsan karaa laakiin waa idhibe arrinkaas ma rabtaa ma rabadayda waa inaan muuji karo meel maaha la caburinayo waxaa suurtagalana mujtamaca dhibaato meelaha qaar oo diinada markii la taabto waxyaabaha aan ka baqayna waxaa ku jirto musiibooyin ayaa yimaado oo alla dhankiisa ka yimaado marka maadaama musiibooyinkaas ay yimaadiin annaka aan aaminsannahay bulshada la joogna inaanan ku fiirsan haddii daad yimaado daadkii aan nala qaadaya haddii dab timaado dabkii aan nala qaadaya maadaama dareenkeenna uu yahay waa inaan dhahnaa saana u aragnaa dhib noocaasa idinka haddaadan ogeynina alla haddaa gardaraysatiin dhibaa idinka imaan karo waa inaan dareenkeenna muujinaa marka waa mahadsantiin mawaaqifta qaar inta annaka ka qabno ayakaba naguma xumeynayaan oo dhib uma arkaan mararka qaar way ka gaabsadaan taladiina waa rabnaayana dhahaan marka maadaama ay dhahaan sida wax noogu jiraan qofka wuxuu naga filanayo yaana iskharinoo maalin kasta ekis ku jirine haddaa khayr wadnana khayrkaana leena haddaa shar wadnana arrinkan waa ka xunnahay bas ogay waa nagu tixgeli karaa marka inay wax badan tartana waa laga yaabaa dadka noo jooga waa ku mahadsantihiin dadka soo qaybgalna waa ku mahadsantihiin bulshadeennana jaaliyaddana howsha inoo wada fursadaheena siinaysa kulamada ee badinaysa waa ugu mahadcelinaa dadka howsha noo hayo dhammaantiina mid mida oo mahadsantihiin aniga waxaan u imid brogaraamka xisbiga aan dooranayo aniga interesiga igu jirta gaar ahaaneed marka guud ahaaneedna waxa soomaalida igu jira waa kow interesiga koowaad waxaa waaye aniga pensionistaan ahay fiscal saaca maad bangan ay ku darayaan xisbigaanu dadka maartay odayaasha oo anoo kala ah hortaas lambar 1 ay tahay lambar 2 waxaa ah waxa soomaalida oo yani guudna waxay ii tahay lambar 2 marka waxaan rajaynayaa qof walba wax annagana yaan loo badina sababtoo ah indifid waa in loo eegaa hooyaa tahay 4 cunugaa haysataa xisbigan muxuu kugu soo kordhin karaa muxuu kaa dhimana pensionistaa tahay qof problem kale haystaa tahay adiga bal horta waa inaan barnaa dadku waa inay bartaan indifid ahaan dantaada adiga kaleeda xisbiga adiga qof ma dooranaysid qofka wax raba asaga ayaad weydiinaysaa brogaraamkiisa waad akhrinaysaa haddaad akhrikan waa lagu akhrinayaa waxaad leedahay adad min egan interesa ligar whose arbeidspartia
haddaad aragto intersigaaga waa ka maxaa interest ku hayo yaa un soomafadhi noorga iyo ilar fox noorga u daanin adhedhaar okay racismaha in laga hortago mobbinka in laga hortago maxay xisbigaan wataan marka in anaga qof kaalmeyno uma aanaan imaalin qofka asaga ayaa leh waa oniska qofka asaga ayaa wax rabaa waa inaan qofka ku kaalmeynaa oo keli ah inaan intersigana ka aragno waxaan aad ugu faraxsanaa aamino iyo ninka dhallinyarada ay soo sharxay oo ah dad foorbildo u noqon kara annagu waa tagnay waa inay helaan dadka waddankan ku dhashay aaminoo kale iyo dadka soo sharaxoo kale dad ay fahmi karaan luqadooda u istaagi kara wax ka dhaadhici kara marka waxaan aad ugu hambaleynayaa dhammaan inta kasoo qashay mar labaad laakiin waa inay ahaataa dumoodinta din egan interesse fosh de muvaqa oo under muvaqa wax danta guud ah qofka kultuurkeena iyo caqiidada ma ka dhex aragtaa qofku la doorto haddii soomaalida wax laga sheego hadduu adna inaan halka intuu soo istaago uu soomaalida ka difaaci karo dhigoro nay degorisha yaa medlem of Arbeits Party eller Förenings Party du kan kalla vad du vill nej degorisha da ikke son smirinka joojiya waxa dadkan ku haysan waa in qofku hadlo da minister man kan yalbo os som politika oo si faqa dafi kan ikasi waa in minister waa ugu yar marka waa rajaynayaa aaminana waa qof afno u leh waa qof sumcad waddankan dadkan ku dhaxle awooddaasna way leedahay aqoon ahaan iyo luqad ahaanba waxaan rajaynayaa inay for build u noqoto ummadda